السلام عليكم. markale waxaad ku soo dhawaataan muuqaalka maanta waxaan jeclahay inaan idinku soo bandhigo buug magaciisa la yiraahdo Good to Great. buuggan casharo badan ayaan ka bartay aniga markaan akhriyay, muuqaalo horena waan ka sameeyay. buuggan xaqiiqdii qof walba oo akhriyo waxaan isleeyahay afkaaro fara badan oo noloshiisa anfacaya ayuu ka baranayaa. casharka maanta aan jeclahay inaan idinka soo bandhigo buugga waa cashar aan isleeyahay qofkuna uu anfacaya haddii aad shirkad leedahay ama ganacsi aad leedahay way ku anficaysaa. qoraaga buugga wuxuu leeyahay shirkaduhu goormay sameeyaan breakthrough maxaa laga wadaa? breakthrough waxaa laga wadaa marka shirkadu caqabad weyn oo in muddo ah haysatay waqti fara badan ay awoodi weysay inay xaliso ay horumar fiican ay ka gaarto, horumar weyn ay ka gaarto, advancement ay ka samayso ayaa waxaa la yiraahdaa breakthrough. marka waxa uu noo sheegayaa qoraaga buugga sida breakthrough lagu sameeyo. shakhsi ahaan casharkan waxa uu ka anfacay waxa weeye sidee adiga nafsadaada breakthrough ugu sameyn kartaa. caqabad baa wax badan ku haysatay, caqabadaas ayaad rabtaa inaad ka gudubtid. marka breakthrough see ugu sameyn kartaa, horumar see caqabadaas uga gaari kartaa, sidee advancement uga sameyn kartaa caqabadaas. qoraaga buugga waxa uu leeyahay shirkadaha waxa laga rabaa 3 qodob inay helaan si markaas waxa weeye breakthrough ay u sameeyaan. kow waxa uu leeyahay dadkooda ama teamkooda ama shirkadda dadka u shaqeynaya waa in ay noqdaan dad disciplined people ah. discipline macnaha waxaa laga wadaa dad toosan oo shaqadooda yaqaana oo diirad leh, wixii markaas loogu talagalay sameynaya oo ka shaqeynaya. disciplined people in la helo waaye. qodobka labaad waxaa weeye disciplined thought in la helo waaye. discipline thought maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa aragti fiican oo toosan oo cad oo qof walba uu fahmi karo, shirkaduna ay gadi karto in laga shaqeeyo ayaa loo baahan yahay. qodobka saddexaadna waxaa weeye discipline action ama ficil ama dhaqangelin iyadana discipline leh. waxaa laga wada waxaa weeye dhaqangelinta ra'yigaas ama aragtidaas waa in uu noqdaa dhaqangelin isagana cad, sida loo dhaqangelinayo la yaqaano, what la yaqaano, how la yaqaano, why la yaqaano. waa in markaa dhaqangelintaas ay tahay dhaqangelin qof walba uu fahmi karo, processkii la yaqaano, meesha laga bilaabayo iyo meesha ay ku dhammaanayso. marka discipline action saas ayuu qoraayo ka wadaa. marka waxa uu leeyahay discipline people in la helo waa qasab u ah, haddii kale shirkadda breakthrough ma samayn karto, caqabadaas hortaala kama gudbi karto. sidoo kale waxaa muhiima ayuu leeyahay discipline thought, fikrad iyadana discipline leh in la helo weeyaan. haddii kale dadkaas fikraddaas ama aragtidaas lagama gadi karo, mana qaadan karaan. marka si looga gado waa in marka fikradda iyo aragtida laga shaqeeyo, aragti fiican oo qurux badan oo cad waa in laga dhigo. taas marka waxaa ku xigta qodobka saddexaad oo dhaqangelinta ahaa. marka waxa uu leeyahay dhaqangelin discipline leh si loo helo waa in la helaa aragti ama fikrad discipline leh. aragti iyo fikrad discipline leh si loo helana waa in la helaa dad iyaguna waxa weeye discipline leh. marka saddexdaa qodob way isku xiran yihiin. qoraaga buugga wuxuu ku tilmaamayaa qodobka koowaad ee ah discipline people in shirkadda lagu dhiso, build upka shirkadda inay tahay. laakiin labada qodob oo kale ee ah discipline thought iyo discipline action, labadaas ayaa waxa lagu sameeyaa ayuu leeyahay breakthrough-ga shirkadda in ay ka gudubto caqabadii markaas hortaalay. fikraddan waxaan jeclahay inaad fahanteen. fikraddan shakhsi ahaan xataa aad ayay kuu caawin kartaa. caqabadda ku hortaalay waqtiyo fara badan ayay kaa caawin kartaa. waxaad fiirin kartaa dadka aad la shaqaysid inay yihiin dad discipline leh. waxaad fiirin kartaa fikradda iyo aragtida aad ku shaqaysid inay tahay aragti discipline leh. sidoo kalena actionka iyo dhaqangelinta iyo ficilka aad sameynaysid waxaad fiirin kartaa in actionkaas uu yahay action discipline leh. marka sidaasna haddii aad nafsadaada ugu apply garaysid oo aad ugu dhaqanto casharkan, wax badan ayaad ka faa'iidaysaa, mirihiisana waad arki doontaa insha allahu tacaala. video waxaan jeclaa dad kale inaad la wadaagtaan, dadka kale aad sii gaarsiisaan insha allahu tacaala. khayr badan ayaan idin rajeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.